gabadhaas iyaduna arrimo qoyska ay ka hadlaysaa. fartuun waxay tiri ninkayga laba haween ayuu ila qabaa, marka haddii habeenkaas uu ila qabana haweenkiisa ayuu maaragtay habeenada uu kalka u leeyahay ama nowbada u leeyahay ayuu aadaa. anina habeen walba inuu maaragtay igu isimtaa oo wada jirnoon wada maaragtay wada dhaqan ayaan doonayaa, haddaan waayana waan xanuunsadaa, arrintaasna dhibaatay igu tahay. marka fartuun waxa weeye arrintaasu shaqo xaq wuxuu leeyahay inuu guursado haddii nafaqada uu markaasi uu heli karo oo wixii maaragtay uu heli karo mu'anatu nikaax waxa la yiraahdo nikaaxa wixii maaragtay loo baahan yahay sida marashada iyo kaswada marashada iyo guriga iyo nafaqada waxaas uu heli karo. marka adiga waxa weeye taada markaasi inaad iska daysaa loo baahan yahay. waxa weeye ninka hadduu maaragtay haweenkiisa ku maqan yahay oo habeenkooda uu siiyo xaq ayuu leeyahay. adiga waa sabraysaa inaad sabarta ayaa loo baahan yahay oo shariicada islaamka wixii ay u ogolaatay inaad u dayso ayaa loo baahan yahay. alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayidina wa nabiyina muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallam ajmaciin. wabacdu waxaanu ka jawaabaynaa su'aalo dad Soomaaliyeed ay noogu soo direen warfaafinta waaga cusub anigoo ah Sheekh Maxamuud Abdullah Arif. marka waxaanu ka bilaabaynaa su'aasha ugu horeysa. gabar Soomaaliyeed joogta wadanka Greega ayaa waxay soo su'aashay oo magaceeda la yiraahdo Xaliime Maxamed. aniga iyo ninkaygu waxaan ka ganacsanaa daroogada waxaan ahayn oon ka ganacsanana ma heli karnaa, daan iska dhaafnana waanu dhimanaynaa. soonkayna muxuu dhimi karaa? Xaliime waxa weeye su'aashaas haddii aan shariicada u fiirino daroogadu sideedaba waa xaraam, adiguna waad ogtahay waa qof muslim ah tahay. waxa la jira la yiraahdo al-daruratu tubihu al-mahduraat, wixii daruura waxay banaysaa xaraamta. daroogada haddii dadka joogaahu oo gaaladaahu ay dad gaala aad ka gadaysiin oo daroogadu ayagu markaasi aan xaraam ka dhiganayn iyo haddaad qof muslim ka gadaysiin labadaba waxa weeye sideedaba waxa weeye shay ilaahay xarimay in laga ganacsado ma banaana. ahaatee midda aad sheegaysid oo ah haddii daroogada wax mooyaane wax kalood ku noolaatiin ama noloshiin aad ku bedeshiin aad heli karina ayna idin gaarsiin karayso inaad u dhimataan waa idin banaan tahay. sababtoo ah waxa weeye aayadan quraanka oo ilaahay suuratul maa'ida ku sheegay oo 10 iyo 1 shay lagu xarimay waxa kamida meeytadi, waxa kamida dhiigi doofaarki ayaa kamida. hadda qofkii loo dhibaato geeyay ilaahay waxa uu dhahay xalaal ayay u tahay. marka hadii xaalatu daruura ay la fiiriyo oo wax kale ku noolaatiin adag weeyhiina waa idin banaan tahay, laakiin daruuradaas ay ku banaanahay si kalena kuma banaana. marka hadii aad u dhimanaysiin badan oo kala helayna saas ay idinku banaan tahay, laakiin dadka muslimiinta ka iibiya dadka gaalada ah. bismillaahir rahmaanir rahiim. su'aasha labaad oo waaga cusubna uu soo hagaajiyay gabar la yiraahdo Farxiyo Xasan oo meeshay joogta aan loo soo sheegin ayaa iyaduna waxay tiri xaq ku saabsan arrimaha dhaqanka qoyska oo hooso ayna weydiisay, taasoo ay ku tiri ninkayga markii aan wada galmoonayno farjigayga ayuu carabka geliyaa oo saas ayuu asagu raaxa ka dhigtaa, aniguna waan kahday. arrintaas xalaal miya oo soonka wuxuu dhimaysaa iyo noloshayda? waxa weeye waxaan ku leenahay Farxiyoy adiga ninka horta waxa weeye naagtu jirkeeda inuu ku raaxaysto waa u banaan tahay dhammaan. waxa jamaaca loo diidayaa duurka in looga tago naagta ilaahay waa xarimay. asagu haddii arrintaas uu jecel yahay oo markaasi raaxa ay la tahay meeshaas hadduu asagu carabkiisa uu geliyo waxa weeye wax hadda shariicada ay u dhimaysa ma jirto, maxaa yeelay maxallu istimtaaciisi ayaa tahay. laakiin hadday maalin Ramadaan tahay hadee waad ogtahay soonka waa ku jabaaya oo soonka ma banaana xaraamna weeye maalin Ramadaan hadday tahay dii la sameeyo. laakiin habeenkii aad isu wada tegaysaan arrintaas soonkaagana wuxuu dhimaysaa habeen waaba habeen oo jamaaca naagta loo tagi karaa. midda kale intood waxay noloshaada kala u dhimaysa ma jirto.
haddii arrintaasuna waa arrin bannaan marka saas ayaan taasna uga jawaabaynaa billahi tawfiiq